waxaanu isku yeernay xarunta taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed dhammaan taliyayaasha ciidamada maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada ay ka koobatay dowladda federaalka ah ciidanka booliiska federaalka ah madaxdooda si ay u wajahaan qorshaha cusub ee 2020 wixii caqabada ay qabaan aanu ka dhageysano lana socodsiino awaamiirta cusub iyo qaabka la rabo in loo wajaho sanadka cusub si ay ka warqabtaan ciidanka booliiska waxaa ku socota dib loo habaynayo ama reform tiradiisa tayadiisa iyo maamulkiisa aad baan waxaan ku soo dhaweynayaa magaalada Muqdisho xarunta booliiska waxaa nagala soo qayb galaysa agaasimaha guud ee wasaaradda amniga oo maamulka guud ee booliiska gacanta ku haya si uu noola ogaado baahiyadeena kala duwan oo awalba uu noogu maqnaa waxaan kaloo rabnaa inaanu iska wareysano amniga guud ee dalka ujeedada ugu weyn ee shirka kan aanu iclaaminay ee aanu dowlad goboleedyada ciidanka booliiska jooga saraakiishii ugu sarreysa ugu yarnay waxa weeye inaanu iska wareysano amniga guud ee dalka xagee marayaa maxaa baahiyooda qabtiin maxaa dhibaato oo caqabadahoo jira annakuna aan u ogaano meesha aanu wax marinayno oo taliska guud iyo maamul goboleedyada ay isla jaan qaadaan siday uga wada shaqeeyaan amniga guud ee dalka arrintaas ayuu shirkeenu ku saabsanaan doonaa waa falanqeyn doonaa waa ka soo qaybgeli doontaan mid baanse rabaa inaan idiin sheegno idinkula darmaano amniga dalku xuduud ma laha amniga dalka Soomaaliya kaliya maaha qaaradda Afrika ama bariga Afrika ama dalka gudihiisa amniga dalka Soomaaliya xuduud ma laha marka qofka ugu sareeya iyo qofka ugu hooseeya ciidanka booliiska meel kasta uu joogo ka mid ah dalka Soomaaliya booliis buu ka yahay meeshuu arko ama report ha keeno ama dambiilaha ku qabto ama dembi ha ka hortaga intaasna waa idinkula daldaarmayaa mas-uuliyaddaana saaran ee dalkoo dhan naga saaran askarigu meeluu jooga askariga ma xitaa dadka shacabka muwaadiniinta ah sida loola macaamulayo community policing saan u sameynayno saan isu kaashan lahayn arrintaasay ku saabsanaan doontaa wuxuu noo socon doonaa muddo 2 maalmood intaasaan idinku soo dhaweynayaa waana wada joogi doonaa muxuu ahaa taliyayaasha maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada ka yimi ee qaybaha guud haya iyagana muxuu ahaa si gaar gaar ah arki doonaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.